السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم حق السلام يا دمان ومت الصومالية قاصة حق السلام يا فانسكيات وقرح بدن وانجعلها. سلامك بعد ما أنتم حار عاري أنا كشكي أرنتاس أقصص قبلها الصومالية. قبلها الصومالية قبلها أو شرفت بدن أو قيمها بدن أو قرح بدن أو معان الدونك مركل وفيه والله ريالتي مركل جالله قبلها أو قرح بدن. أنت أسكتب. إذن كوسا قرح بدن أو صاص أشرف بدن أيها هذا اللي من كينا ينسفي عن أول رقمين. ريالتي مركل جالله. marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa wiilashiina Soomaaliyeed ee quruxda badan oo Ilaahay insiiyay la dhaqma la noolaada ina ma Afrika tagsa wiilasha Soomaaliyeed kor saarnaataan maaha ina maalin kasta nimanka Soomaaliyeed ka sheegtaan maaha ina ku kor buuqdaan maaha gabdho badan waxaa jiraan niman haystaan oo reer qabaan oo family haystaan oo familidooda si sharaf leh oo nool nimankooda iyo kuwa badan waxaa jiraan nimankooda aan si fiican oo nooleen marka si fiican oo nooleen kale nimankeeni ma ina buuq ku ridin ma ina qaylo ku ridin ma ina stress ku furtin mina ina isku buuqsin ina ciyaalkeeni jahwareersin aabalaan dhigtiin reality markii laga hadlo all the time markii oo iskoola ay meel la fiiri dhamaan ciyaalka ilmaha Soomaalida waxa u qoran single mother iyo hooyo kaliya insa mama marka waxaan dhihi lahaa wiilasheena sharafta badan oo Ilaahay siiyay oo qurquruxda badan yaana ku ciyaaran yaana isku buuqinin ahaysan nimankeena aduu ninkaada ka xun yahay hagaajisan kartaayna waxaa lahay naagta ninkeeda ayadaas hagaajisato si ay ka soo dhigato taas waa tuu aduuna marka loo fiiriyo naaga ninkeeda soo xumeyn ama xumeynin ma jiro laakiin ayaga ka saaran xumaanta awar haduu cabtooya haduu ciyaar suuqya haduu mooriyaya waa laga saari karaa waa la hagaajisan karaa wax fiican oo qurux badan haduu fuulxun badaya haduu dheeri haduu gaabay haduu casi haduu madow waa la qurxin karaa quruxna waxba ma tirto marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed oo qurux badan nimankeena si sharaf leh oo noolaada nimanka ay isku buuqseen isla hadlaa jidka walaahi marka aan marto oo aragto wiil isla hadlaa ama dhaay naagtida soo ceersi soo buuqso bac madow hoos wato waana xay marka waxaan dhihi lahaa wiil gabdhaha Soomaaliyeed nimanka si fiican oo loo dhaqo nimankeena heesta nimankeena si sharaf leh oo noolaada. Assalaamu calaykum.